madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan u joogay dalka Jabaan ka qaybgalka shirweynaha toddobaad ee horumarinta Afrika ayaa maanta wadahadallo laba geesood ee magaalada Tokyo kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Jabaan mudane Shinzo Abe. wadahadallada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa diiradda lagu saarayay iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo abuurka dhalinyarada, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga, tababarka ciidanka booliska iyo taageerada ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya. labada hogaamiye ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtidooda ku aadan kamir dhalinta qorshaha wadajirka ee Afrika iyo Jabaan ee lagu jaangooynayo muddada 3 sano ee soo socota iyo sidii maalgashadayaalka u dhashay dalka Jabaan ay diiradda ku saari lahaayeen inay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan guulaha muuqda ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay xaqiijiyeen muddooyinkii la soo dhaafay iyo doorka hogaamineed ay ka qaadan karaan kobcinta dhaqaalaha iyo isku xirka dalalka gobolka. dhinaciisa ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa xusay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay barnaamijka iskaashiga laba geesoodka ee Jabaan iyo Afrika, soona u mahadceliyay madaxweynaha iyo wafdiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka soo qayb galay madashan iyo qorshaha wax ku oolka leh ee ay soo bandhigeen. ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa sidoo kale ku bogaadiyay dowladda federaalka Soomaaliya horumarka ay ka gaartay dowlad wanaagga, dib u heshiisiinta dhaqaalaha iyo ciidanka qalabka sida wuxuuna ballan qaaday in Jabaan kaalin mug leh ay ka qaadan doonto dadaalada deyn cafinta